waxaan rabnaa markan saxafiga ugu wanaagsan ama wariyaha ugu wanaagsan inkastoo anigu aan islahaa lagama horeeyo waxaana la ii sheegay in dad iga horeeya oo iga wanaagsan inay jiraan soo dhawow waan leenahay wasiirka warqadda noo fur wariyahaas u yeeraha arke waa siiyey wariyahaas aniga markaan soo qishay magaca waa aad buu nooga firfircoonaya soo dhawow wasiir aad umahadsantahay dolyan waxaan halkan ugu yeerayaa wariyaha ugu wanaagsan sanadkan tagaya sii dhammaanaya 2019 ee Soomaali u garatay gaar ahaan dhalinyarada reer Muqdisho wariyahaasi waa saaxiibkay waa walaalkay Cali Aadan Muumin Cali Aadan Muumin soo dhawow iskaba Cali Aadan Muumin saaxiib soo dhawow dolyan iyo Muqdisho awal waxaan uga mahadcelinaa inaan ka dheerahay inay igu soo aadiyeen aad mahadsantahay wasiir adigoo fasaxayna cali laakiin waa isku haraynaa cali soo dhawow marka hore waa ku hambalyaynaa in aad noqotay wariyaha sanadka 2019 halo Muqdisho waana ku guuleysay maxaad ku guuleysay leedahay waxaa magaalada Muqdisho joogta 3,000 oo wariye maxaa lagaga soo xuray وما سنتين ورتا مركود حماد علنا الله سبحانه وتعالى مركز كله وحربين أسقاس وسلامه تذكر جابن سيدا نيكو كله تمديد محربة أنت أنا شيء صوف ماركتي ويديسي أنا أديك وجسوا عليه سؤال أو ستحكون ولي حاجة كان تراث كم سوقات بقول ورياتو ما تاي ورياش كمان في عدي لكن وحال مثلا نصيب كأيه ليه كمنان إجا قوم بدن إجا سهرية إجا نزمبين دونا جرا وحنا ما هاد علينا يا ضد كعد كود سيء أي كرتي إن أنا هاي قط مضاد إنسان كان لسيا بالمريض قلنا هذا ما اسمه قد محدث وتكون متيسة أو واسطة ما يسمى برنامج ور تابين يعني ما حد تكون متيسة waxaan ku mutaystay sidaan anigu aaminsanahay in dadka iyo codeeyay oo aan aaminsanahay inay yihiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed qaar madaxda ijecel inay jiraan oo maleynaya laakiin shacabka Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan anigu madaxda maxaa ka wadaa tusaale way xireen marka jacayl uma jeedo wariyaha marka la xiro ama wariyaha la ciqaabo hadda waxay jira wariyaha Al-Jazeera ka xiran oo Qaahira ku xiran maalin walba Al-Jazeera waxay update ka dhigtaa maalinta ku korantay 2020 maalmood oo xiran yahay yani waxa wariyahaas waliba waxa loo sii qorsheeyaa awaad yaala dooxa ama qadar yaala maalinta xabsiga ka soo baxay in la guddoonsiin doono maalin kasta oo xarigiisana waxa u socota lacag $2,500 ayaa u socota marka xarigu dhib ma laha sida kale to maxaa isleedahay bulshadu waa ku soo kordhisay bulshada waxa ku soo kordhiyay aniga aaminsanahay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aniga ila midka ah aan baray inay hadli karaan oo ay xaq u leeyihiin inay hadlaan sababta wax kale ma ahan aniga marka hawshan bilaabayay media ma isan fogeen sida daraadeed waxaan la kulmay bulsho madaxeedu hoos jiro sida daraadeed waxaan aaminsanahay qofku intuu nool yahay inuu xaq u leeyahay inuu hadlo waxa oo la kulmo waxa kamid ah nolol iyo geeri mid dooranaysa way badan tahay tirada aan naftayda qadimay ee aan maaragtay u qadimay si aan dadka iyo codeeyay kuwa lamida iyagaba aan ugu sheego wax ay mudnaayeen in loo sheego goorma ku soo biirtay saxaafadda sanad waa tahay erey lagugu xantaa jira gabagabadii ma isku taqaanaa waa caadi dadku waxay dhahaan qarax buute laakiin cuntada cunaa waa tahay aqbalyo
aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo waana kula wadaagayaa inta ku codaysay iyo baada saxaafadda waa kugu dhiirigelinayaa runtii kartidaadana waa soo dhaweynaa halkaana kasii wada dadaalkaaga waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe inaan kugu qabsan doonaa weerki laftirkeen aad umaasan waa tacaala aad u mahadsan yahay yaa noogu xiga